الله وبركاته. magacaygu waa Suhayman Maam Cabdullaahi. waa mar kale iyo kulanti kale iyo mar kale ka soo muuqda wajigayga aragtid. maanta waxaan rabaa inaan barnaamij jira la wadaago. horta maanta marka hore waxaan rabnaa new challenge ama barnaamij su'aal isweydiin duubo ama idin soo gudbiyo, laakiin waqtigaan noqon waayay anigu soo diyaar laakiin qofkii baa iga mashquulay, waqti kale ka badan dhimi lahaa. horta maanta waxaan rabaa challenge waxa ku bedelayaa sheeko jacayl ama qiso jacayl oo dhab ah. sidaas qof ku dhacay magaciisa kuma sheegayo, waa qof daawadayaashana kamid ah noo soo gudbiyay. magaciisa ku sheegi maayo, astayna shirkada hore u galnaa. qofka magaciisa ku sheegi maayo, laakiin sheekada jacayl sidaan ku bilaabanaysaa. wuxuu yiraahday magacaygu waa hebel hebel, waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo, waxaan dhigan jiray iskool, waxaan ahaa 7. waxaan isjeclaanay gabadha magaceedana sheegi maayo sababtoo ah yaa weelka. gabadha magaceedana sheegi maayo. wuxuu yiraahday gabar baa isjeclaanay, gabadha magaceeduna waa saasaa igu qaadade. markaasaa sheekada jacayl waxay tahay gabadha wiilku wuxuu ahaa wiil 7, gabadhana ayaduna 8 bay ahayd. sidaa darteed wuxuu yiraahday gabadhaan waxaa isku baranay iskoolka. haddii aan isbaranay anaa horey baa usoo diyaariyay niyadii ka akrinayaa adiga, laakiin aniga taabo. marka waxay ahayd gabadhu waxay ahayd anoo xaafdood yiraahday gabadha aad uma jeclaan, laakiin markii hore horta waxaa isku baranay dood iyo dagaal baa isku dhex baranay. iskoolka lagu falanqeynayay dagaal maaha, kii maaha, waa dood iskoolada qofkii ciyaal iskoola garanaya dood wax lagu wada falanqeeyo. sidaa darteed markaa gabadhii markaa iskoolka isku baranay dood markaa isku baranay waxaa sameeyay gabadha horta waa ka helay keliya, ma jeclaan, uu ka helay keliya. qofkana iska matelaya adigina waa daawadii. gabadhi waa ka helay, sidaa darteed markaa ka helay gabadhii wax jacayl uma qaadin, laakiin gabadhi waa xiisayn jiray hadalkeeda iyo kelmadaheeda iyo inaa la kulma xiisayn jiray buu yiri. maalin baa waxaa dhacday gabadhii inaa jacayl dhaaf u qaado. jacaylka dhaafka markaa u qaaday waxaa sameeyay dee gabadhii saa ula kulmi waa garan waayey, isku galaas manihi saa ula kulmi waa garan waayey, ama saa ula hadli waa garan waayey. waxaa sameeyey waxaa qoray waraaq jacayl. waagii waxa ay dawsku soo baxay soo noo soo sheegay nugta. waagii waxa dawsku soo baxay, markaas taleefka dawska waagii soo baxay dawskuna waagaa qaalib waa ma ku soo baxay $200. qofkii og baa ogday Soomaaliya joogay. markaas $200 ku soo baxay dee mana ana haysan lacag $200. waxaa sameeyay waraaq oo qoray. waraaqdii baa waxaa u sii dhiyay wiil kale saaxiibnaa isku galaas nahay, isna magaciisa sheegi maayo. marka sidaa darteed waxaa dhacday markaa warqadii u sii dhiibay iskoolka maalinta waa u gooyaano. marka u gooyay gabadhii maxay soo tiri iyo wiilkii maxaa ku dhacay iyo waraaqdii sidee noqotay. ma soo qaybta labaad.